كنت هذا يفكر ساريو وادركتا ما أنت واحد تجي مقالة الجبلي nimankii la oran jiray Ilayspan ama kooxdii Gaahagtaas waxa kale oo sidoo kale tagtay inantii la holin waayay bariyahan dambe goosha Isaaq ayaa iyadna kala qayb galashay xafladda iyo kulanka quruxda badan ee statement-ka meel loogu dabaaldegay magaalada Gabiley caasimadda gobolka Gabiley in yar baan ka oran doonaa mid yarna waxaan ka oran doonaa in yar oo kaftana oo nimanka habar jecel gubta sida qurux badan ay mar walba uga filciliyaan hadalka kaftanka ay ku tiraahdo goosha Isaaq way wixii ka dhigan challenge isaga oo daahagaasna maanta adarkasa inuu isla hadalkii si qurux badan u yiri okay aan ka gudbo maanta waxa tagtay magaalada Gabiley goosha Isaaq oo hogaaminaysay oo bariyahan horkacaysay hablaha Subayriyada ama baag adag hadalla dambiila ah sida ugu gamaysay oo ku taageeraysa Suldaan Sabayste kuna difaacay beesha Subayrawal iyadoo horena garab istaagtay madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi halka ay ka dhaqaaqday Suldaan Xasan oo adeerkeeda oo isku jufayeen kadib markii uu ka bayray meesha la yiraahdo Soomaaliland ama Muuse Biixi ama Subayriyadii iyo saldanadii loo dhiibay oo la lumay halkaana ay taageertay Suldaan Sabayste oo jifadeeda hoose ahayn oo Suldaan Xasan uga bayday inantan waxa dhalay nin nin caan ka ahaa beesha Saad Muuse hogaamiye dagaalaha haliyay ahaa oo kamid ah rag ugu waaweyn ee taariikhda ku suntana ama beesha Subayrawal Saad Muuse waliba khaasatan reer Axmed Cabdallo iyadu ka soo jeedo waxba laakiin maanta taa uma jeedo taariikhdeeda kama sheekeynay waxaan aad uga hadlayaa sida quruxda badan ee xafladaasi loogu qabtay Gabiley iyo sida gobonimada reer Gabiley ay u soo dhaweeyeen kooxdaasi daahagaas oo mar walba u taagneed qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland okay haddaba waxaan isbarbar dhigayaa xafladii hore ee lagu ooriyay ama dagaalku ka dhacay ee dad badan lagu xidhxidhay oo ilaa imka u xidhan yahay xoogayihii xisbiga kulmiye gobolka Gabiley Iid Xasan Dheere rag kale loo haysto xabad iyo rasaas lana dhacay dhalinyaradii sideed u soo hadal qaadan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland midowg soonow waxa la yiri qoolay qoorqabad biyo ku cabto dadka waxba lagu qasbi karo meesha waa dimuqraadiyad dadku waa dimuqraadi xisbiyadna waa Soomaaliland ama kulmiyaado Soomaaliland kaahwa Soomaaliland wadani waa Soomaaliland madaxdii qaranka ee horena ixtiraam bay ka mudan yihiin dhammaan reer Soomaaliland oo dhan maaha inaad ka xasaasiyadato oo marka aad maqasho magaca Muuse Biixi inaad ka gubato ama jin qof jin ku jira marka quraan lagu akhriyo gubanaya aad noqoto waayaan daro okay hadaba aanu soo gudbo barnaamijkan xafladii hore dagaal baa ka dhacay buuq baa ka dhacay waxa soo dhamaa maantana waad aragtaa sida quruxda badan ee loo soo dhaweynayo sida gobonimada loo dabaaldegayo Gabiley isku muujisay iska daa goboladii caasimadii ku dhawaatay waxay leeyihiin reer Gabiley anaga caasimadii meelaha la dirsiyo wax kama ka daaya goboladuna gaar bay u tartameen caasimadeeni taa intaasan kale yahay waxaanay cadaynaysaa dadka markay waxay doonayaan iyaga loo daayo in ay si gobonimo leh reer Gabiley ogsoonow calankan iyaga leh dalkana iyaga leh Soomaaliland iyaga leh qiimaha iyo dhiigga ay ugu fadhidana way yaqaanaan ma hadda loo soo hoos gelin kara calan yar ma hadda loo soo hoos gelin kara wax kale dad ma aha qadiyad iyo qarannimada marnaba ka tagi kara taa hortayaan la isku dayin marnaba ma reer Gabiley ka sugin inay buura fuulaan meel tagaan dagaal sameeyaan mudaharaad ay xabad la socdaan sameeyaan wadada ilbaxa marka waxa ay doonayaan si dimuqraadiya ku doona reer Gabiley halka kaga haya qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka ceeri gaaba joogiyo ka boorama joogo waa wax Soomaaliland wada leedahay halkaas kaga baxay arinta kale waxa weeye nimankii habar jecloortay waa niman aad u goba waxyaabo fara badan ma idin sheegaya inantaa goosha Isaaq dhowr jeer bay la kaftantay ama hadal la ku tiri mar waxay tiri dharkiina qaata inta idinka taala yaa lagu arkin bahashi buu qurxiyeeno dharkiyo la guranayo challenge bay ka dhigeen fiidiyoogii baba si toban qarxayba ilaa kuwii qurba joogay ilaa kuwii dalka joogay okay maalintii dhammeyd habar jeclayadu lama hadlayn
laakiin waxay la hadlaysay boqor buur madow iyo salaadiintii dadka caayay siyaasiyiin niman gaar ah la hadlaysay wax tiri ninka magaaladeeda joogay maalinta ma la hadlaa xabad baan afka kaga dhufanana waa kuwa nimankii habar jecel fiidiyo badan gooshaan areas immigration baaba laga dhigayba dadka raafaya baashii waxa laga dhigayba xaraabaad hawadaasa la geeyay kaftanka quruxda badan leh markay inaan hadal ku tiraahdo dadka qaar intay u soo fadhiistaan mayga halkay kala qaadan lahaayeenoo salaadiin iyo ma aragtay xildhibaano iyo wax kasta waad ogeydeen saare halgan markii inantii la xiray ugu baadaragsan halkii loo dhan lahaa Muuse Biixi ugu baadaragsan ama booliiskii lala hadli lahaa loo dhan lahaa waarinantan inta waxa may sameynayaan la xirin ayaa waxa la caayay inan kale oo saare halgan la yiraahdo Muuse isku beelihiin baa ku yuula isla soo qabsaday xildhibaano salaadiin cid kaste taas waa ceeb ka mid ah ceebaha aan fiicnayn ee dadka reer Soomaaliland ay sameeyaan inanna in la caayo maaha ugu baadaragsan ha ahaato maaragtay inan kale oo reer Soomaaliland mid kasta haato sidaa nimanka habar jecel sameeyeen anu waxaan u arkaa dad bisil oo runtii kaftana qaadi kara hadal lagu yiraahdo qaadi kara gabadhi waxa ay tahayna qaadi kara baashi waa la qurxiyay waxa weeyaan gabigaygiba challenge baa laga dhigay hawadaasa fiidiyowga la geeyay iyadii waadiga arkay inay la qoslaso gooshana cadaawad ma aha ay u qabta reer Sheekh Isxaaq qayb kamid ah ama habar jecel iyada la walaalyihiin tahagaas maanta ma waan habar jecel kooxda hogaaminay gabilay tagay ay hogaaminaysay la tagayso siyaasadana markasta ma aha sidaad adigu aragto ee waxay u baahan tahay bisayl fara badan boqor Cismaan Buur Madow isaga ku gafay mar Saacad Muuse ku gafay mar wuxuu yidhi waxyaabaha darkaysan mar Subeera walba ku gafay oo wuxuu la soo istaagay Subeera wal way ku saaqideen iyadoo inuu garan karno Subeera wal halka ay siyaasadda Soomaali kaga jireen markii la joogay Soomaaliyana 3 jeer bay ra'iisul wasaare ka noqdeen 2 jeerna waxay ka noqdeen kililka shanaad madaxweyne 2 jeerna Soomaaliland bay madaxweyne ka noqdeen siyaasadda uu leeyahay ku saaqideen anu ma garanayo meesha uu ka keenay boqorku laakiinse waxaan ku ilaabayaa sida quruxda badan ee inantii hadalka ku tiri ay uga jawaabeen habar jecel ee gobonimada leh aynu boqorkana ku ilaabanaa siyaasadana waa la kala tagi karaa ceeb maaha haddii shalay toole habar jecel iyo Subeera walay ahaayeen jeegaan dee maanta ciday doonaan bay noqotay maalintana ogsoono siyaasaddu waxay noqon doontaa 3 xisbi Subeera wala xisbi habar jecel xisbi garxajisa midna aniga meel igaga qoro hadhow toolo siyaasadda ku amban 3 ayaa tartami doona kii hela Samaroon iyo Arab iyo reer Sheekh Isxaaq kale iyo Ciise iyo Madhibaan hela baa qaban doona jagadaas ku guuleysan doona barnaamijka foge meel fogaarsi aad iyo aad baan ku salaamayaa